magacu wuxuu keenayaa lahaanshaha dhulka iyo awoodda aan u leenahay in aan muujinno inaan anagu dhulkeenu leenahay khayraadka ku jira. sidaa darteedna waxaan isticmaalnay in aan helno meel iyo yool aan ka duulno oon ummadda iskugu keeno. runtii tiim dhan baanu ahayn. shirkan qabsoomidiisa carqalado badan iyo dhibaatooyin badan baan kala kulannay. haddaan idhaahdo halkan aan kusoo koobayna amaan kaga hadlaynaa inii wax lasoo koobi karo ama laga hadli karaa maaha. si kastaba ha ku dhacday, laakiin alxamdulillah anagu hadalka anaga iyo yoolka aan u socday waxay ahayd qabsoomida shirkan iyo ummaddu inay intay isku imaato ka tashato ayaheeda iyo jiritaankeeda ubadeed inay ka tashtaan bay ahayd. ma jirin dowr siyaasadeed oo annagu aan leenahay. ma jirin jwin maaha, urur qabiil maaha, urur jifa maaha urur siyaasadeed oo siyaasad maanta ku tartamaya maaha xisbi gooni ama group gooniya maaha. waa dhalinyaro fahantay in waxay ka bedeli karaan waxna kusoo kordhin karaan ummadooda. inta badan qurbaha ka nimid hawshan meesha laga abaabulina waxay ahayd dhalinyarada dibaddu sidii dadkii ay iskugu keeni lahayd midnimada, wadatashiga iyo jiritaankeeda umadeed ooga wada tashan lahaayeen. waxaa sharaf noo ah in shirkii noo qabsoomo, inuu si wanaagsan inagu socdo, in aanu ka tashanno mustaqbalkooda isweydiino dha maxaa inaga maqan. shirkan waxaa ku jirta ergooyin fara badan oo ka kala yimid meelo kala duwan. waxaa nala joogta erga ka timid Kismaayo, waxaa nala joogta erga ka timid Wajeer, waxaa nala joogta erga ka timid maxaa Qurbaha, waxaa ka timid ergaa ka keena anagu Qalaafe, Iglooley, Shilaabo, dhammaan deegaanka Jijiiro. markaa shirka intaa leeg baaxadiisu micnihii dadaalka iyo waqtiga iyo teemka ku baxay inta uu leeyahay waa dareemi kartaa. ma aha wax shalay iyo maanta iyo daraad lagu qabsaday iyo ugu yaraan muddo hal sana ayuu shirkanu socday siduu ku qabsoomi lahay. muhiimadu iyo dantaan ka lahayn maaha annaga wax interest gooniya loogu jira ama ujeedda gooniya annaga waa ka lahayn maahe waxay tahay muhiimadu dadku intuu isku imaado in ayahooda iyo mustaqbalkooda ay ka tashtaan, ay isweydiiyaan maxaa inaga dhiman, xageen maxaan ku idhahdaa horumar u raadsanaa, sidee ku gaari karnaa horumarka, maxaan qabsanaa. durbajoogka doorka in leeg bay ku leedahay inay dhulkooda maalgashtaan. dadka deegaanku doorka in leeg bay ku leeyihiin inay noloshooda ayagu ka tashtaan. bal intaa inay isweydiino ayaa muhiim. shirkani sidaan rajeynaya insha allah waa noqon doona shirka ugu dambeeyay. waxaa dhici doona shirar kale oo deegaamada bahgi ay degto keliya maaha inay maxaan ku dhaha Soomaaliya state ama Ethiopia ay degtay. deegaano badan baa degto, Soomaaliya iyo Kenya baa ka mid tahay. mid walbana waxaan rajeynayaa insha allah inaan ku qabano shir noocan oo kale ah, weliba mid kasii ballaaran oo ka weyn inuu ku qabsoomo ayaan allah wadana insha allah baan ka rajeynaya.